halkan waa BBC oo idin kala hadlaysa mowjadaha gaagaaban ee magaalooyinka qaar iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan subax wanaagsan khayarta hawada nagala xiriiray waa subax Arbaca ah 2 Juun Afrikada Bari waxay haatan tilmaamaysaa 7 ururnimo oo gow ah qodobada aad barnaamijka ku maqli doontaan waxa kamid ah qaramada midoobay oo sheegtay in 90% dadka gobolka Tigreed ee dalka Itoobiya ay u baahan yihiin gargaar cunno oo degdeg ah natiijada doorashooyinkii golayaasha Somaliland oo aan wali la shaacin kalluumaysatada degmada Eyl oo shabakadahooda ka waayay noocyo kamid ah kalluunka haddaba maxay tahay sababta maraakiibta badda ku jira sharci darrada baa kalluunkii meelihii marinadiisa iyo meelihii gabiyaashii uu ku noolaa burburiyay marka waxa dhacday in ay waayeen meel ay ku soo gabadaan ay meel ukunta dhigtaan waxa kale oo barnaamijka ku maqli doontaan labadii gobol oo kale oo haddana aan fursadii u jeedin baabanadii doorashada dhici lahayd oo yiri wax doorashada dhacay mana ilaa laga hirgeliyo mabaadi'da aasaasiga ee midowga Afrika u yaala waa sababta loo dooran la yahay guddoonka baarlamaanka Afrika ee fadhigiisu yahay Johannesburg Koonfur Afrika qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan oo soo saaray Cabdiqaadir Yuusuf Cali anigoo Xasan Cali Geela ayaan halkan idin kala socodsiin doona hadduu eebaha awoodda leedmo balse marka hore aan ku bilowno warkii caalamka waxa diyaar u ah Mucaawiye Maxamed Buraale mahadsanid Xasan Mareykanka ayaa hakinaya dhammaan howlihii shidaalka iyo gaas soo saarista ee ka socday seeraha qaranka ee ku yaala gobolka Alaska si loo hakiyo qorshihii maamulkii Trump uu ku doonayay inuu ku ballaariyo shidaalka laga soo saaro halkaasi qiimeyn kadib ayaa lagu ogaan doonaa si loo xoojiyo ama in meesha laga saaro heshiisyadii lala galay shirkadihii ku howlanaa shidaalka waxaana tallaabadan soo dhaweeyay kooxaha u ololeeyo ilaalinta deegaanka balse waxaa cambaaray xubnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga hay-adda caalamka u qaabilsan ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta ayaa ka digtay halista daran ee kusoo foollay xayawaanada iyo geedaha taasoo ka dhalan karta haddii heerkulka adduunka uu sare u kaco 1.5 degrees warbixin horle ay soo saartay hay-addan ayaa muujinaysa in boqolaal ka mid ah xayawaanada ku nool adduunka ay halis wajihi karaan sida shabeelka ku nool dhulka barafka ah xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanka uu $4 bilyan uu siinayo dalalka dhaca bartamaha Ameerika si loola tacaalo waxa uu weynay horseeday qulqulka muhaajiriinta halkaasi Blinken wuxuu hadalkani ka sheegay xilli uu ku sugnaa Costa Rica halkaas oo uu kulan kula qaatay wasiirada arrimaha dibadda ilaa 8 dal oo dhaca bartamaha Ameerika ururka midowga Afrika ayaa dalka Mali ka saaray xubinimada ururkaasi kadib afgambi todobaadkii la soo dhaafay ka dhacay Mali waana markii labaad oo Mali ka dhaco afgambi military muddo 9 bilood gudahood bayaan ka soo baxay midowga Afrika ayaa loogu baaqay militariga inay awoodda ku wareejiyaan dowladda rayidda isla markaana la sii daayo madaxweynihii Mali Bahndaw iyo ra'iisul wasaarihiisa Mukhtar Aoun midowga Afrika wuxuu soo kale ka digay in cunaqabataynta ay ku soo rogi doonaan ama tallaabo ay qaadi doonaan oo haddii militariga Mali aanan lagu amrin in saldhigyada ay dib ugu laabtaan ugu dambeyntan hay'ad ka shaqeysa arrimaha gargaarka ayaa sheegtay in ugu yaraan 25 qof oo muhaajiriin ah ay ku dhinteen xeebaha dalka Tunisia kadib markii doontii ay saarnaayeen ay qalwentay xilli ay isku dayeen inay badda Mediterranean-ka uga tilaabaan dhinaca Talyaaniga hay'adda bisha cas ee Tunisia oo la hadashay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in 70 qof oo kale laga soo badbaaday xeebaha halka ay raadinayaan 39 qof oo kale oo badda ku maqan kuwaas oo saarnaa dooni mareysay meel u dhow dekada Sfax ee Tunisia warkii dunida wanaagta aad ayuu mahadsan yahay Mucaawiye Maxamed Buraale oo warka caalamka la socodsiinaya dhageystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka وهاجاج أنكو بلون هايدا قرمد مدوبي وقابلسان عنا أدون كدبل فيها يا شكتي إن كبدان بقول كي بس عشان ضدك كونول قبل كتكريدا دالك إثيوبيا يباهيهن جرجار عنا أو دقدقة قبل كاسي وحكتير علاد ولا حيساعد مدى دولة إثيوبيا يا مامل كي TPLF حكم كلا طوري كدي مركي عيد مدى ملتري دالك إثيوبيا وسيدا لا شيء كاشان يا عيد مدى دالك إريتريا يا ماليشيا يا عيد مكة كترسن ديجان كقبل كم حرادة أي بشي نوفمبر weerar ku qaadeen maamulka gobolkaasi Cabdiqaadir Yuusuf Cali ayaa ka waramaya hay-adda cunnada adduunka ee WFP ayaa sheegtay inay u baahan tahay $200 milyan si ay gacan uga geysato quudinta in ka badan 5 milyan oo qof oo halkaasi ku nool
boqolaal kun oo qof oo reer Tigray ah ayaa horeyba ugu baahnaa gargaar cunno ka hor intaanay bilaaban colaadda ku dhowaad 7 bilood ka hor. Tan iyo markaa wixii ka dambeeyeyna tirada aad ayay sare ugu kacday iyadoo qaramada midoobay toddobaadkii la soo dhaafay ka digtay halis macaluul haddii aan la kordhin gargaarka. iyadoo heerarka nafaqadarrida ay sii kordhayaan, WFP waxay ku baaqday xabad joojin si loo helo mar in dadka tabaalaysan loogu gaarsiiyo gargaar. mar sii horreysayna Britain ayaa ka digtay in waqooyiga Itoobiya ay ka jirto halis macaluul oo ba'an. ergeyga gaarka ee UK ee ka hortaga macaluusha Nick Dyer ayaa qiimayntan sameeyey mar uu booqday gobolkaasi ee colaadda saamaysay. Dyer wuxuu xaaladan ku tilmaamay mid musiibo ah, isagoo tusaale u soo qaatay nabadgelyo xumo iyo burbur soo gaaray qalabkii beeraha iyo goobaha caafimaadka. wuxuu sharaxay burburka soo gaaray qalabka beeraha, abuurka iyo runtii dhammaan tuulooyinka. wuxuu ka digay in tiro aad u fara badan oo ka mid ah dadka ku nool gobolka ay yihiin kuwa aan si fudud loo gaari karin sababo la xiriira jidgooyooyinka iyo dagaalada ka socda awgood. Dyer wuxuu sheegay in tacadiyada ay weli sii socdaan, isagoo soo qaatay warbixinno naxdin leh oo ku saabsan dil iyo kufsi ka dhacay gobolka. arrinta sida gaarka ah looga walacsan yahay ayaa ah burburka soo gaaray xarumaha caafimaad ee ku yaalla waqooyiga Itoobiya. Dyer wuxuu ka digay in caafimaad darrada ay tahay halista ugu badan ee ay wajahayaan dadka reer Tigray. aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf cali oo noo soo koobayay warbixintii ee BBC-da ka qortay arrimahaasi dalka Itoobiya. dhegeystayaal ayaa ra'yigooda ka soo dhiibtay, waxaana ka mid ah Faarax Bashiir waxa uu joogaro wuxuu yidhi hadalka ka soo yeeray qaramada midoobay runtii waa mid sax ah, waayo dadkii ku noolaa gobolka Tigreeda waxaa ku dhacay buu yidhi xasuuq iyo barakac aan caadi ahayn. shacabkii halkaasi ka barakacayna waxay u baahan yihiin gargaar. Faarax Maxamed Caydiid oo jooga Burcano waxa uu leeyahay qaramada midoobay oo sheegtay in dadka gobolka Tigreeda 90% ay u baahan yihiin gargaar. runtii waa arrin xaqiiqa buu yidhi, hase yeeshee waxaa muhiim ah in qaramada midoobay ay dadkaasi gurmad gaarsiiso, balse aanay ku ekaan in afka un ay ka sheegaan dhibaatada ka jirta halkaasi. soomaaliduna waxay ku mahmaadaa buu yidhi meel hoo doonayso hadal waxba kama taro. dhegeystahaas iyo dhegeystayaasha kale ee ra'yigooda soo dhiibanaya waa ay mahadsan yihiin. wararka Soomaalida haddii aan eegnana qaybo badan oo ka mid ah jamhuuriyadda iskeed madax banaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland waxaa weli ka soconaya tirinta codadka doorashadii golayaasha wakiilada iyo tan deegaanka ee isniintii halkaasi ka dhacday, iyadoo natiijada kama dambaystaana la filayo inay qaadato muddo. xog ay heshay BBC-da ayaa sheegaysa in xitaa ay suurtagal tahay in maanta aan la shaacin natiijada kama dambaystahay, balse guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa xalay warbaahinta u sheegay in roobab ka da'ay gobolada bariga Somaliland ay sababeen inay wax iska bedelaan ku talagalkooda dhanka natiijada doorashada. inkastoo meelaha qaar la soo gabagabeeyey tirinta codadka, haddana si rasmi ah looma shaacin natiijada. waxaa si jirta in xisbiyada iyo musharaxiinta tartamaya ay helayaan xogaha horodhaca ah ee ku saabsan codadka iyo sida loo kala helay, maadaama ay wakiilo u kala joogaan ee deegaanada kala gedisan. doorashadani oo baaqatay 2 jeer oo hore ayaa waxay noqonaysaa tii 7aad ee Somaliland ka dhacdo tan iyo markii ay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale muddo haatan laga joogo 30 sano. in ka badan 2,700 oo xarumood ayay codbixintu ka dhacday, iyadoo dadka isu diiwaangelina ay gaarayeen in ka badan 1 milyan oo qof. wararka ku soo kordha waxaad ku maqli doontaan idaacadaha dambe hadduu eebaha awoodda la idmo. halkan nalaga socotaan waa af Soomaaliga ee BBC-da. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. wahagaag warar kale oo Soomaalida ku saabsan dabcan way noo soo socdaan, hase yeeshee baarlamaanka dalalka Afrika ee Pan Africa loo yaqaan ee xaruntiisu tahay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa maalmahan ka taagnaa buuq iyo ismariwaa la xiriira cidda noqonaysa guddoonka baarlamaankaasi. gobolada ku midaysan baarlamaankaasi qaarkood ayaa ishortaagay oo codayn la filayay inay dhacdo shalay oo Talaado ahayd, taa oo lagu dooran lahaa guddoonka baarlamaanka ama madaxweynaha baarlamaankaasi Afrika. guddiga doorashadan qabanaya waxaa ka mid ah Cabdicasiis Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Cabdi Xukun oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, wuxuuna xubin ka yahay baarlamaanka dalalka Afrika. isagoo ku sugan Johannesburg ayuu u waramay Axmed Ibraahim Nagaashe. khilaafkan wuxuu salka ku hayaa mabaadi'da midowda Afrika, kaasoo ah
in maxaa la yidhahdaa la ilaaliyo waxa loo yaqaano rotationka ingiriiska lagu yidhahda ama kaltanka. marka doorashada hadda jirta afrika waa 5 gobol, 2 gobol oo kamid ah weligood xilka baarlamaanka afrika ama hogaanka baarlamaanka afrika weli qaban. 2 gobol baa hadda waxay leeyihiin marka yaan lagu tuman mabaadi'da midowga afrika. xeer hoosaadka baarlamaankuna saa ma qabo. marka waxaa moodaa inay iskhilaafsan yihiin mabaadi'da midowga afrika rotationka waxa la yidhaahdo iyo xeer hoosaadka baarlamaanka afrika uu ku dhaqmo xoogaa inay iswaafaqsanayn baa moodaa. marka haddii kaltanku uu qirayo mabaadi'da midowga afrika ay sheegayaan laakiin xeer hoosaadkii uu baarlamaanka qudhiisu u dhigtay aanu arrintaasi aqbalayn, maxaa diidan in sharciga uu baarlamaanka u yaallay isaga xukumaya la raaco? taasay ahaydba sharciga iyo nidaamku waxay ahayd ilaa iyo waxaa hadda ka hor meeshan ka dhacay ilaa 5 doorasho hadda ka hor. 5 doorashaba xeer hoosaadka baarlamaankaanu leeyahay lagu qabtay maadaama laakiin 3 gobol oo kaliya ay soo mareen hogaanka baarlamaanka. 2 gobol oo kale oo haddana aan fursadii u jeedin oo aan u jeedin inay fursadaas helayaan baabanaday doorashada dhici lahayd oo yiri wax doorasho dhacay male ilaa laga hirgeliyo mabaadi'da aasaasiga ee midowga afrika u yaala, taasoo ah waxa loo yaqaano principle of rotation. 2 gobol waa kuwee? waa gobolka waqooyiga afrika oo wadamada carabtu ay degaan iyo gobolkan southka oo South Africa ilaa Angola iyo Zimbabwe iyo Zambia iyo Mozambique iyo wadamada wadamada hadda meesha buuqa ka kiciyay oo doorashadii banaday 2 maalmood isku xigtaa la banadaayay. marka midowga afrikana waa aaminsan yihiin oo hadda wax war oo cad ka yimid ma jiraan. anigu waxaan ku jiraa guddiga doorashada la rabay inuu qabto waa Soomaaliya xubin ka tahay anaa matalayay 5 wadan baana guddigaas hadda maarta Congo, DRC wadanka la yiraahdo, Soomaaliya, Tunisia, Gambia iyo Zimbabwe. 5 wadan ay ahayn waxa hadda doorashada la yidhi ha qabtaan. baarlamankan mar haddii ay dalalkii afrika oo dhani ku midaysan yihiin oo xildhibaano u joogaan, ma suurtogeli weyday in xal diblomaasiyadeed ay u helaan oo ay xataa ku doonaan dalalka gobolada doonaya in ay xilka qabtaan haatan iyo kuwii kaleba? ilaa haatan wax dhexdhexaadin oo diblomaasiyadeed ma socota? may dhexdhexaadin ma noqonaysaan maraynaa. waa laga yaabaa wafdi in laga soo diro midowga afrika kaasoo dariiq bixin doona ama jiha noo furi doona haddii ilaahidmo. laakiin mar walbaba ilaa iyo xeer hoosaadka baarlamaanka afrika ilaa wax kabedel lagu sameeyo way adagtahay si mabaadi'da midowga afrika loo waafajiyo doorashada baarlamaanka afrika. waxaa jirta marka arrimaha siyaasadda laga hadlayo weliba ururada gobolada ama kuwa qaaradeed laga hadlayo waxaa jirta inay dalalku isku riixaan oo isku muquuniyaan sida ay u kala saamayn siyaasadeed iyo dhaqaalo weyn yihiinba. maadaama koonfurtii iyo waqooyigiiba ay yihiin, keebaad isleedahay miisaan siyaasadeed iyo mid dhaqaalaba wuu leeyahay oo ay suurtagal tahay inay tiisa noqoto? horta walaalow markaa rutarta baarlamaanka afrika wuxuu degan yahay gobolkan hadda asaga oo buuqa wada oo southka la yidhaahdo baarlamaanka xaruna Johannesburg. gobolkaasi ku taala South Africana waa dowlad weyn oo influence ku leh. waxay hoostagareeyaan oo ay hayaan baarlamaanka amnigiisa iyo transportationka waxaasoo dhan iyo guriga uu degan yahay xataa ayagaa bixiya kharashka oo dhan. marka dowladda South Africa influences way ku leedahay laakiin hadda gobolka la iskuma dali karo in ayagu martigeliyaan institutionka ama baarlamaanka xogiyihii guud ee baarlamaankana waa ka yimid Malawi waa isla gobolkan laftigeeda. marka in loogu daro haddana madaxweynihii ama hogaanka baarlamaanka xoogaa xildhibaanadan afrika kala yimid wadada kala duwan waxay u arkaan culays bay arrintaa u arkaan. waxaad ii sheegtay inaad adigu ka mid tahay guddiga qabanaysa doorashada, carabkana waxaad ku dhufatay in aan dalalka koonfur afrika aan la isugu dari karin inay madashii iyo hogaankiiba ay yeeshaan. ma sidaasaad dhexdhexaad ku tahay qudhaadu? dhexdhexaad lagama hadlayo. waxaan kaaga hadla aniga maaha, waa fikirka xildhibaanadan kaaga hadla. mar hore koonfurtu waxayba martigeliyeenba baarlamaanka way martigeliyeen. ninka oo xogayaha guud ee baarlamaankana waa isla gobolku ka yimid. marka kuwa Faransiiska ku hadla ama kuwa Western ka yimaadaba argumentiga noocaasa qabo. anigu waxaan kaaga warbixinayo waa waxa meesha ka jira, opinionkayga maaha. kaas wuxuu ahaa xildhibaan cabdicasiis cabdulaahi maxamed cabdi xukun oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo u waramayay Axmed Nagaashe. وهجاج إن أنتي نينا دقيستي شالي وحن إذا عذاها يجا كشجني إن مسؤولين تدلك السعودية العربية أي كوات كيسان يان طلابو أي كحديدين سمع عذاها مساجد أو أي أمرين إن أن لقى مقلين مالك بحسن وجودها مساجد. وزارة arrimaha diinta ee dalkaasi ayay usbuucii la soo dhaafay ku dhawaaqday in dhammaan sameecadaha masaajidda codkooda la gaabiyo oo aysan ka badan 3 meelood hal meel heerka ugu sareeya codka sameecadahaasi. arrintaa oo ay u cuskatay cabasho ay sheegtay inay uga timid dadweynaha dalkaasi, balse dad badan ayaa go'aankaasi dhaliilay walow dowladuna ay dadkaasi ku tilmaantay kuwa cadow ku ah boqortooyada Sacuudiga. haddaba maxaa ku jaban in codka masaajidda ama sameecadaha ku xiran hoos loo dhigo? arrintaasi ayaan wax ka weydiinay Sheekh Maxamed Cumar Dirir Axmed Beder ayuuna u waramay.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد marka hore horta in kor loo qaado adaanka iyo aqoonida iyadu waa sunno aad u adag oo ummadii baa ku ogaanaya waqtigii sidoo kale khudbada in iyadana jumcadana kor loo qaado oo dadku ay dhageystaan waxa kale oo jira oo iyaduna in kor loo qaado ku xidhan salaadaha faralka ah waxa laga maarmaana dadka tukanaya inay arkayaan imaamka muuqaalkiisa inay arkayaan ama ay maqlayaan codka waayo labada waxa ku xidhan waxa la yiraahdo mutaabacatu imaam imaamka raacidiisa oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inma ju'ila al-imam liyutamma bihi imaamka waxa lagu talagalay in lagu daydo ku dayashadu laba mid bay noqonaysaa sida loo raacayo ee sabab noqon kartaa waa in isagii la arkayo ama cidii ku sii xidhnayd la arkayo waxa suuragal ah inaan labada midnaba la arkaynin laakiin masaajidka buuxsabo banaanka lagu tukanayo sidii dhacday maalmihii dhaweydba dadkuna ay kula socdaan codka ay maqlayaan marka masaajidkii buuxsamo ama xaramkii buuxsamo marka qofkii hadduu muuqaalkii arkaya ama maqaalkii hadalkii maqlaya mutaabacadii waa suuragal laakiin mar waxa dhici karta uu dadkii arki waayo codkiina maqli waayo markaasoo kale la socodkii suuroobi maayo sidaa daraaddeed in la kor qaadaa marka laga maarmaan bay noqonaysaa laakiin sideeda kale waa wax iska wanaagsan oo fiican inay dadku dhageystaan waajibsan maaha waxa jiroo kale ama kulli faaqan baynu odhan karnaa hadda dee ummaddu horeba way u dhegaysanaysa qirada qur-aanka oo baxaysa laakiin waxaa la odhan karaa wax soo kordhay baa isagu riixayo dee iyadoo heesi iyo durbaanadii meelo laga qabanayo maxfallaha la isugu imanayo oo la dhiiri gelinayo in qur-aankiina la yidhaahda ha la aamusiiyo taasaa arrin kale ah oo laga yaabo in dee ujeedo kale ay ku lifaaqan tahay in macsiyadiina la dhiirigeliyo baara meelihii lagu tumanayay durbaanadii kor loo qaado isla markaana la yidhaahda ha la aamusiiyo salaadihii faralka ahaa ee la tukanaya codkii baxayay aan la qaadan karayn baa taas dowladda sacuudiga waxay sheegtay in sababta ay u joojiyeen ay tahay in ay ka soo sheegteen qaar ka mida mujtamaca oo xilliyada carruurta ay jiifaan oo kale dadka waaweyn oo kale ay dhibsadeen taa ma isleedahay gundhig waa looga dhigi karaa in mikrofoonada la damiyo ama la gaabiyo maya isma odhan karo masalan salaatuleylka oo kale salaada habeenkii dadku marka ay hurdaan waa suuragal oo dee dadkii way hurdaan laakiin waktigan 5 salaadood la tukanayo waynu ognahayo dee dadku ma hurdaan amaba ummaduba inay tukataabay tahay waktigaa horena cid ugama sheegi jirin oo ugama caban jirin iyaguna hore umay sheegi jirin waxaa laga yaabaa dadkay sheegayaan inay noqon kartaba dadkan ay faraha badan ay dalka ku soo daayeen ay leeyihiin waa dalxiis kuwaasun inay ka soo yeedhay baaba suuragal ah baan odhan karaa intaad ka warqabto hadda ka hor ma dhacday arrimahan oo kale oo muslimiinta dhexdooda ama haddii ahaan lahayd muslimiinta hore ama xilligii dhexe ma jirtaa arrimo noocan oo kale ah oo lagu taliyey in salaada hoos loo dhigo khilaafiya weeye kolley culimaduna way ka waramaan waktiga habeenkii la hurdo oo kale salaada salaatuleylka in hoos loo dhigaa inay fiican tahay masalo culimadu de ay ka waramaan weeye laakiin mulaabasaadka waxyaabaha hadda dareenka muslimka kicinaya waxa weye arrintan waxa ku xeeran bedelkan khaliijka ka soconaya ee ay ka wadaan reer galbeedka iyo aragtidoodan islaam nacaybka ee soo biiraysa iyo dhalinyaradan khaliijka qabsada ee laga yaabo inay u dhega nugul yihiin ee u heelan yihiin arrimahaasunbaa soo biiray baynu odhan karnaa hadda dadka qaar gudaha dalka sacuudi carabiya way ka soo horjeesadeen arrintani maadaama adigana aad sheegtay in imaamka ay tahay in la maqlo in samiicadaha aad loo dallaco dowladda sacuudiga ay sheegtay inay tahay mid dad badan ay dhibsadeen dadka maxaa la gudboon isleeda markaa dadku sidaynu ogsoonnay ama maalintii dhaweyd ba aynu la soconnay dee khudbadii markii la maqli waayey dadkii qaarkood way iska dareereen qaar kale jumcay iska tukadeen qaar kale meeshii bay iska sii fadhiyeen wareer baa ka dhacay iyaga laftigoodu waa kuwii dib u noqday saan sulayeen oy jumcada iyo ciidaha ayay kasoo reebeen oo waxay dhahen jumcada iyo ciidaha kor baa loo qaadi karaa marka haddee la jiifiyaano bannaan bay noqonaysaa kolkaas saa u eegto kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed cumar dirir waxa uu u waramayey wariyaha b b c da axmed beder halkaad nalaga socotaan waa laanta af soomaaliga ee b b c da haddii aan usoo laabanno wararka soomaalida kalluumaysatada ku nool degmada eyl ayaa sheegaya in badda laga waayay noocyo ka mid ah kalluunkii lagu yaqaanay oo ay ka jilaaban jireen dadka halkaasi ku nool kalluumaysatadu waxay arrintaasi u aanaynayaan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada ahi uga kalluumaysato badda kuwa oo sida ay sheegayaan xaalufinaya badda caasho cabdikariin caasho eyl oo 30 sano ee u dambeysay ka shaqaynaysay kalluunka ayaa wariye axmed cawil uga warantay noocyada kalluunka ee hadda laga waayay badda
kalluunkii badda hadda aad buu u yaraaday kalluuno noocyo badana oo mutafac badan ahaa baa la la'yahay sida libax cadka oo kaleeto libax cadka waxaa ka mid ah miishaarta maafoosta bahashan lagu cad la yidhaahdo waxaa kaloo maqan nibiraankii demiski waa la waayey kalluun la dhihi jiray isagana caweer hadda wuu yaraaday kalluuna badan oo mutafac ahaabaa badda lagu hayn waxaana loo malaynayaa kalluunkaasi inuu nabaad guuray sababta waxaa keentay maraakiibta badda ku jira sharci darrada baa kalluunkii meelihii marinadiisaha iyo meelihii gebiyaashii uu ku noolaa burburiyey marka waxaa dhacday in ay waayeen meelay kusoo gabadaan iyo meel ukunta dhigtaanin sidaa laaligeed waxay baddii ku dhowdahay kalluunka mutafac ahaa iyo libaaxyadii iyo adduunkiiba inuu yaraado oo hadda qaarkoodna la la'yahay waxaa sheegtay kalluun badan in la la'yahay cididu weydiisa ma jirtaa kalluunadaas oo idinka cuni jirtay oo idinka dalban jirtay waa jirtaa sida kalluunkan maxay tahay libax cadka waxaa laga heli jiray dhiga qaaliya iyo cadkiisoo qaaliya waa dhoofsan jirnay shirkadihii naga gadan jiray waana weydiiyaan hadda waa la la'yahay waana yaraadeen mar dhiifa xabad ama marka horeetana intaasoo xababa soo saari jirnay oo badan hadda maanta waxaa muuqata kalluun inaad noo keenteen sidaan malaynayna badda waaba xirneedba sidee lagu soo qabta kalluunkan anagu baddu marka xiran tahayna waxaan dhiganaa shabaago doonya yar baa ka shaqeeya oo baana foordayaal ah markastaba kalluunka waan helaa dad baa ku hara badda oo markaa libaaxsato baa ka shaqeysa libaaxsatadii markaa shabaagihii libaaxa loo dhigay baa kalluunku gelaya kalluunka gelaya waxaa ka mid ah kalluunkan la yidhaahdo qardabada waxaa gelaya gaduudo waxaa gelaysa silqo caasha adigu imisaad ka shaqeynaysaa arrimaha kalluunka iyo badda sama gelin jirta adigu badda waan geli jiray waan ka shaqaysan jiray shaqadayduna waxay ku xiran tahay badda inaan anigu la soo baxo baan marka hore ku bilaabay kabacdina waxaan ku xijisiistay inaan ka shaqaysto oo aan aniga la ii shaqeeyo kabacdi waxaan ku bedeshay in aan dadka seafood kariyo dadka cuntada badda inaan baro oo maxay tahay nafciisa iyo wanaagiisa aan tuso laakiin maxaad caasho aad iskaga dhaaftay inaad baddi adigu aad shaqadaadii hore aad sii wadatid oo baddi sii qoystid wallahi hawlo badan baa isoo food saaray hawlaha badan horta isagoo barofishkayga ugu horreysay oo badda shabaagaan ka marba dhigan jiray gargooraan dhigan jiray marmar baddaan geli jiray waxaa igu kalifay deegaankii iyo dadkii waxay u arkeen in aan xaaladaas aan laga shaqayn karin dumar barofishkiisa aysan ahayn marka xogay masaajidada iyaana laga sheegay waxaa la yidhi gabdhuhu shaqadaas male ha joojiyaan kabacdina waxaan lahaa sixiimad yar sixiimadaydan marmar ku tuuran jiray haddana weli waa ii joogtaa mideeda kaleeto baddii baa waxay noqotay sidii hore wax soo saarkeeda hore oo badnaa uu yaraaday waxyaabo faa'iido aad ka heli jirta ma jirtaa markaad badda aad adigu aad qoyso sidoo adigu aad shamaagta aad soo dhiganayso sidoo faa'iidooyin aad ka heli jirtaa haa waa jirtaa sababtoo tahay bixii marka adigu la soo baxdid iyo marka lacag soo bixisid waa kala faa'iido badan tahay marka adigu la soo baxdid bay ku waxaan lacag kugu fadhin bahlaysa iyo markii qalabkaaga kuu shaqeeyo laakiin markaa gadid waxaad inaa faa'iido saasatid maahane waxa weeyaan wixii noqon mayso taas waxay ahayd caasho cabdikariin oo u warramaysay wariye axmed cawil hay-adda samafalka ee medicine sans frontier ayaa waxa ay sheegaysaa in qiyaastii in ka badan nus milyuun qof dalka dimuqraadiga congo ay u baahan yihiin biyo ay cabaan iyagoo biilaani ay ku dhacday arrintaas ayaa waxaa ka dhashay ama ka sababay dhulgariir ay idhaahdee foolkaano ka kacay buur ku taala dalkaasi gaar ahaan magaalada Goma iyadoo dad badan ay halkaasi ka qaxeen muddo hata laga joogo 10 maalmood dadka intooda badan ayaa la leeyahay waxa ay ka baqayeen in ay guryahooda ku soo laabtaan iyadoo foolkaanahaasi dhulgariir ka dhashay weli laga cabsanayo inuu halkaasi ka qarxo ama foolkaano kale buuro kale oo ka qarxo arrintaasi waxaa ka waramaya taftiraha BBC da Africa Will Ross waa kan Mucaawiye Maxamed Buraale oo soo jeedinaya hay-adda MSF waxay sheegtay in si degdeg ah loogu baahan yahay biyo nadiif ah inay helaan dadka ku nool bariga magaalada Goma maadaama ay halis ugu jiraan cudurka daacuunka qaraxii volkaanaha ee buurta Nyiragongo ee 22kii bishii May ayaa burbur xoogan gaarsiiyay baraagaha iyo soo kala tuubooyinka biyaha boqolaal kun oo qof ay weli u suurtagali laadahay inay dib ugu laabtaan guryahooda magaali Rodat oo ah madaxa hay'adda MSF ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa sheegay in haatan ay wax ka qabanayaan baahiyaha degdeg ah ee dadka barakacay balse gargaarkaasi uusan ku filnayn baahiyaha dadka oo dhan MSF waxay sheegtay in shaqaalaheeda ay adeeg caafimaad gaarsiiyeen magaalada Sake halkaas oo qiyaastii 100,000 ilaa 180,000 oo qof ay isu yimaadeen kaniisadaha iskuulada masaajidda iyo wadooyinka buurta Nyiragongo oo 10 kilomitir u jirta magaalada Goma ayaa 10 maalmood ka hor waxaa ka qarxay volkaane
ka oo ay ku dhinteen 32 qof sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay. waxaa jiray dhulgariir badan oo halkaa ka dhacayay tan iyo markii uu volkaanahaas qarxay. mahadsanid mucaawiye. dalka tanzaniana inka badan muddo ilaa 5 sano ayay dadka ku qaadataa in dacwadahooda ay maxkamadaha la tagaan amaba loo dhageysto kiisaska ay wataan. haatanse waxaa bilowday maxkamado guurguura oo dadka miyiga u tagaya oo kiisaskooda qaadaya. waxaa ka warramaya wariyaha BBC-da Humphrey Magonjwa. waa kan xasan sheekh cumar oo soo jeedinaya. Kenneth waxa ay sugaysay muddo 4 sano ah in kiiskeeda furiinka la dhagaysto. haddase waxaa la sameeyey 2 qol oo laga dhex sameeyey gaadhi kuwaasi oo ay leedahay maxkamadda guurguurta. waxaana loogu talagalay in lagu xalliyo cabashooyinka bulshada. ugu dambaynna shaqadani waxay ka bilaabanaysaa tuulada Mwanza iyo Magana. dabcan ma heli lahayn cadaalad haddii aysan ahayn maxkamadan, sababtoo ah maxkamadaha kale waxaa yaala kiisas aad u fara badan. maxkamadan waxay noo sahashay wadadii aanu ku raadinaynay cadaalad, waayo waxay ku taalaa meel u dhow xaafadayda. maalmahan waan xanuunsanaa, taasoo ay tahayna waxa ii suuro gashay inaan u lugeeyo maxkamadda marka loo eego maxkamadaha kale ee ku yaala meelaha fogfog una baahan kharashaad dheeraad ah. maxkamadaha guurguura waxay adeegyadooda gaarsiinayaan tuulooyinka, waxayna u muuqdaan in gaarsiinta xukunka tuulooyinka ay bil qaadan doonto, iyagoo doonaya in meesha ay ka saaraan caado dhaqameedka wakhtiga dheer jiray ee dadku ay isticmaalaan. waxay isku dayayaan inay xalliyaan kiisaska madaniga ah sida dacwadaha furitaanka iyo khilaafaadka dhulka. sidoo kalena waxa ay xukumo ka soo saari doonaan dembiyada oo ay ku jiraan kalluumaysiga iyo ugaarsiga sharci darrada. ujeedka laga leeyahay arrimahan ayaa ah in la gaarsiiyo adeegyada maxkamadaha dadka ku nool meelaha fogfog, dadka aadka u liita iyo sidoo kale kuwa naafada ah. sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka, ku dhowaad 47% dadka halkan ku nool Tanzania kuma noola ama kama agdhowa maxkamadaha. taa micnaheedu waxa uu yahay in dadka iyagoo cadaalad raadinaya oo qarash badan iyo waqtiba uu kaga baxo. waxaa la rajaynayaa in adeegani uu gacan ka geysan doono yaraynta kumanaankiisa oo dib u dhac uu ku yimid. laakiin waqtigan la joogo waxaa jira 2 maxkamadood oo guurguura oo kaliya, waxayna ka howlgalaan gobollada ka baxsan caasimadda Dar es Salaam ee bariga iyo gobolka Mwanza ee waqooyi galbeed ku yaala. waxay shaqadooda bilaabeen sanadkii 2019 iyagoo uga mahad celiyey deeq uu siiyey Bangiga Adduunka oo gaaraysa 65 milyan. tan iyo markaasna waxay xaliyeen ku dhowaad 1200 oo kiis. weli qareennada qaar waxay aaminsan yihiin in tani aysan ahayn xalka muddada fog, waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in wax badan la qabto. Fulgensi Masawe waa agaasimaha u qareemidda iyo dib u habaynta xarunta sharciga iyo xuquuqda aadanaha ee Tanzania. وهجاج إن عيارهنا كارلو أنجيليتي أيا كتجي كوحدة إيفرتون يسوق نقضي تبرها كوحدة ريال مدريد مركي اللي بعد إن نكن أو لحدن يكوتشيرة أو مدة لبصنا أحسو معمول ريال مدريد أنتوا قد حس لبضو كون سدح يطبنكي يا لبضو كون يشان يطبنكي أيا كتجي إيفرتون كدب سددي طبعا بلوت أو تبرا وها كها جرون كجوديسون بارك وحنا بوسك كلوريج يا زين الدين زيدان إسلام مركا يعني هشيس كاس أيا إيفرتون كوخس بيا إني رادسو تبره هذه اللي oo joogta muddo 5 sano gudahood ah waa hagaag idaacadii dabcan Cabdiqaadir soo saaray ayaa intaasi nooga dhan cidii ay wararka iyaga dhaafeen waxay dib uga heli kartaa barta internetka ee bbcsomali.com oo dabcan warar badan aan ku daabacnay iyadoo dadkana ay ka heli doonaan wararkii ugu dambeeyay doorashadii isniintii ka dhacday Somaliland ee golayaasha deegaanka iyo kuwa wakiilada haddii aan inta ku soo gabagabeeyay idaacadii saakay waxa soo saaray Cabdiqaadir Yusuf Cali anoo xasan geela in la socodsiinayay tan iyo 2 duhurnimo hadduu eebaha awoodda la idmo waa BBC-da la sidaas iyo nabad gelyo.